ururka Gabiley Development Group ayaa deeqa kala duwan soo gaarsiiyay dhakhtarka dhimirka ee Gabiley. Deeqaasi oo kala ahaa $8,000 Mareykanka ah iyo raashin loogu talagalay dadka xanuunsanaya ee ku jira dhakhtarka dhimirka ee magaalada Gabiley. Waxaana halkaasi goobjoog ka ahaa maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Gabiley. Ugu horeyn deeqdani waxaa ka warbixiyay xubin ka socotay ururka Gabiley. ururka ayaa la sii deynin hala sii wado inta waxaan kula talin lahaa qoladayda qurbajoog samakaab ama ururka samakaab namid baa kula talin lahaa khayr allah hayda siiyo arrin fiican baad samayseen waad dhisteen laakiin maanta baahiyaha yaalla arrinkan wuu idinka soo ballaadhay waxaa u baahan tihiin intan in ka badan inaad dalad noqotaan inaad yeelataan xildhibaano idinla shaqeeya maayar idinla shaqeeya horta hospitaalkana arrinkiisu inuu idinka wareego maadaama uu culus yahay inaa kabtaan mooyaane ma wadi kartaa ayaguna deeqdaasi ka mahad celiyay ururka samakaal oo iyagu gacanta ku haya dhakhtarka dhimirka بعد السلام قلت لا شكرا على الواجب ويا وحكست أو قبصنا عدنا كمين ديغين عدنا ومين سمينه ونفتني وإنه درينا إنه دتكينا باهن إدبدا داتسن إمير كلا إدن تيار له أود يار له إنه وحقوق وإنه قرورنا وإنه بيا يهار يدوه سمينه هرتمدي إنه واجب هاي بدمد لي إنه شكريا ما دبعتها إنه ويأركتها إنه وأقبل كين إنه وأهلكين أنا بمركي أنه أركنا دركي بنجوبنا ومدي كسوقينا دبعته هو إنه موجود dhakhtar kan oo maanta mabladda 2006 tobankii sano socday maanta mabladkiisii u horeeyay ama maanta u joogay oo maanta aan warbixin ka bixinayno dadkii la soo xiriiray ee muddada yar gaaban xiriisnaa udurba maanta iyagoo degan oo caafimaad oo si fiican u hadlayo aan buuq iyo qasi dhibaato toona lahayn oo dadkeenii wiirka qabay lamida aan maanta baarkino warbixin ka bixinayno wax ilaahay loogu mahadnaqayaa waxaan aadna ugu faraxsanahay waxaan intaa hawsha u galnay dhakhtarka u dhaarmeen waxa ahayd dadka ilaahay maskaxda ka qaaday ay walaalaheen inana midka ee dibadda iyo roobkiya darayada ku dayacan inaynu inagu ilaahay nagu eegayno ka xirino weli ka hadda weliba dad badan baa noo dhiman sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Gabiley iyo maayarka magaalada Gabiley iyo waliba xildhibaan Cabdilaahi Balaaki oo isaga deeqdani loo soo wakiilay أيه هيدا ضد كواحد واحد قريبة بيكون يعني أنت كل شيء إنه وياه لقى بس أسبتال لنا صدق والله كنا بدون ما في وين لقى تحشونا وين فايدة دي وحيد بيقولي أنا أكنا ضد كلام تيجي ما أنت وهو يكون يصدق كقفي ما حد صار يعني حالته ما عرفت حالة هذا وارد يكون تيجي ما أنت ندور هواي السلام تكنت حالته الحمد لله وين تيجي الدنيا بان مو هادلنا runtii ururkaas samakaal oo dhaba adeeg badan hawsha u sameeyay isbitaalka guud ahaan marka ay percentage waxa uu marka tusaale u yahay iskaashiga bulshada suuqyada caalamiga wanaagsanaya waxaan dib u sugnay damqasho keentay in la sameeyo isbitaalka damqashadaas oo ka timid wax laga arkay gobolka Gabiley gudihiisa kullay arrintan waa arrin waddanka dhammaan saameyn ku leh sida dadkii Soomaaliland dhakhtarkii u horeeyay dhimirku waxa Berbera waddanka intiisa kale oo dhan dhakhtar ma lahayn macnaheedu taa wuxuu noqonayaa waxa aad u yaraa dadka dhimirka ka xanuunsanaya hadda laakiin gobol kasta waxay noo soo wakiisheen oo aan halkan ku sidnaa ay isbitaalka u soo ururiyeen lacag $8,000 iyo lacag $874 oo ah lacag sakaatul fitri oo aan raashin la soo siiyay raashin isbitaalka oo dad ku bixiyay fitri ay marka waxa uu kaga tagayaa waa raashinkii waa labada qaybood waanu idin guddoonsiin doonaa idinka og baahida dhakhtarka iyo waxa ka jiriya dhibtiina sida aad ugu kala qaybinaysaan waxa aad ku qabanaysaan waxaanu codsan lahayn inaad program yeelataan inaad tidhaahdaan lacagtaa waxaasaan ku qabanaynaa siyaasaan ku qabanaynaa markaad ku qabataan hadhow toban si dadkii ugu qancaan waxaanu ku qabanay lacagtii aad soo ururiseen wixii aanu idin sheegno waxaas iyo waxaas ahaa sidaasaan wax u qabanay sidaasaan ku qabanay dadkuna way ku dhiiran
idina waa lagu soo hirani idina transparent bay idin noqonoo dee dad wixii loo soo dhiibay ammaanadaha gaadhsiiyo sidii awal ba aad u gaadhsiinayseen ad wax ugu qabateen ayay idin noqonin waanad ku mahadsantiida waa rabadaan oo waqti dambe oo salaadii baabaynu ayaabaynu taaganahay waxaanu idinku wareejin doonaa adduunkii lanoo soo dhiibay ee ahaa shay waa Cabdirasaaq Axmed Hayaal Kacse Som News TV Gabiley